adduunku wuxuu ku hadlaa af dawladeed Soomaaliyana waxa uu hadlaysa dawladda federaalka Soomaaliya oo hadlaysa dawladda federaalku midnimada kuma bixiso inta ay ku bixiso kala taga khaasatan magaalada Muqdisho dadka jooga ee siyaasiyiinta waxaad moodaa inay u xaqlinayaan in dawladdii Soomaaliyeed ay iyadu kala tagto oo waxaad arkaysaa dad waaweyn oo madax ah magacyadooda muhiim ah in la xuso inaad facebookyadooda ku arkayso iyagoo midnimadaba aan price ama qiimaba aysan la lahayn taa bedelkeeda kala tag uu qiimo leeyahay waxaan weydiinayaa hal su'aal maxaad hadda madaxtinimada kaga hordaysan Soomaaliya ma magaalooyinkana ka soo tartantaan in meeshan filada la yiraahdo Soomaaliya looga taliya moogta meeshan loogama taliyo xaafad loogama taliyo meeshan filada la yiraahdo Soomaaliya oo dhan baa looga taliya ninka filada ka taliyana waxa khasab ku ah oo ku dhaaranaya oo uu maraya wax la yiraahdo dhaarta inuu midnimada jamhuuriyadda ilaalinayo dawladda federaalka waxaanu ka barimayno muwaadiniin baanu nahay dalkaanu leenahay qayb baanu ku leenahay haddii dawladdu naylowda maaha inaanu dawladda ka dudayno dawladda qof baa maamula qofkaasi uu tegaya kan ha joogo mid kale ha yimaado ka dudimayno waxaan leenahay kii kasto yimaada muwaadiniin baan leenahay xaq baan u leenahay inaanu difaacno midnimada dawladdana waxaanu xaq ugu leenahay oo waajib ka saaran yahay inay midnimada price ku bixiso oo qiimo ku bixiso oo dawladdu ay ku hadasho dadka afka midnimada adduunka waa ceeb dawlad la leeyahay waa laga go'aya oo iyadu dadkii ka go'itaankooda si taageeraysa dawladuhu adduunka Afrika oo dhan price bay ku bixiyaan Cameroon hadda waa laba qaybood Senegal waa laba qaybood waxa la yiraahdo Ethiopia wada aragtay say u kala go'an tahay inagu sidaa ma nihin arrimaha adag oo dhan ma hayno laakiin haddana dawladda marka talada haysa midnimada waxay ku bixisaa qiimaha ugu sareeya ku bixis waayo haddii dalka midnimadiisa aad ka shaqeyn weydo yaad u talinaysaa qofka madaxda ayuu u talinaya koonfur waxaan rabnaa dadka siyaasiyiinta ka inay aqliyeystaan oo fahmaan midnimadu qiimaha ay leedahay midnimadu qiimaha ay leedahay waxa weeyaan waa qiimaha anagu bixinayno midnimadii la rabay qiimaheeda in dawladda federaalku bixiso dadka SSC baa bixinaya midnimada waa loo dhintaa midnimada waxa la yiraahdaa waa la isu dulmiyaa midnimada wax la waxbarashada looga tagaa waxaas oo dhan anaga bixinayna qiimahaas anaga kaliya ma mudnina aan bixin akhyaarta dhammaan dhalinyarta sharafta leh quruxda badan runtii aad baan idin salaamayaa waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad u ajiibteen inaad programkan sharafta badan jiritaanka muujinaya isla markaana joogitaanka tilmaamaya aad uga soo qayb gasheen waxa ugu weyn ee ina mideynaya waxa weeyaan inaynu isku dan iyo isku duruuf nahay duruuftaasoo ah inaynu tirsanayno ama sheeganayno ama degannahay ama ka soo wada jeedno deegaan isku mid ah isla markaana ayna taabanayaan waxyaabo isku mid ah haddii sidan oo kale ay isugu imaan weynana ay dad kale inta inoo shiraan ay isu keenkeenayaan inagoo kala duwan marka koowaad qodobka koowaad la isugu yimi waxa weeyaan in dhalinyarta deegaanada SSC gobolada oo dhan magaalooyinka oo dhan tuulooyinka oo dhan ka wada yimi ay si mug iyo miisaan leh u wajahaan oo diidaan sheegaanna in maamulka Somaliland waxyaabaha uu ka qabtay ee uu doorashada ugu yeeray aysan ka dhicin deegaanada balse waxa ka dhacay uu ahaa marin habaabin dad bulsho masaakiin ah oo qaybteed waxa la yiraahdo aysan waxa la dooranayo waxa la dooranin ba kala garanayn qaar qabiil lagu istaaray qaabab kala duwan loo istaaray in la yiri doorasho ka dhacday wax doorasho ka dhacdayna ma jirin balse waxaan rabaa marka koowaad dad badan oo maadaama inagu caasimadii joogno dad badan oo caasimadda jooga maadaama videogan la daawan doono ama dad caadi ah daawadaan ama dad madax ah daawadaan dad badan oo caasimadda jooga ma oga runta waxa Somaliland tahay waxaan rabaa inaan ka faa'iideysanaya mainstreamkan inaan sheego dhowr qodobkooda waxa weeyaan markood inaan fahamno jiritaanka Somaliland iyo waxay ku dhisan tahay iyo waxay ku asaasan tahay si ugu yaraan balan isugu dayno inaanu our own perspective inaanu aragtideena ku sharaxi karno sida inagayna saameynaysa cidda la sheeganaya cidda la tirsanaya cidda iyadoo maqan magaceeda la isticmaalaya cidda kaadhirkeeda la xoqonaya oo dhan waa inaga saas darteed inaguna inaanu sheegno oo aanu diidno waxyaabahaas oo dhan waxa bilow ah inaan sharaxno marka koowaad Somaliland sidayta asalka Somaliland waxa weeyaan waa udub dhaxaadku horta waxa weeyaan waa family waa reer kamid ah reeraha Soomaaliyeed ceeb ma waa niman isaaq la yiraahdo ceeb ma saaqaasi laakiin waxay ceebtu imaanaysaa marka ay arin siyaasadeed soo gasho arin siyaasadeed waxay u soo galaysaa beesha isaaq markii 60kii la isku darsamay oo jamhuuriyad la noqday waxay bilaabeen inay dareemaan cabasho ay ka qabaan saamigii kaga soo aaday siyaasadii la qaybsaday ee jamhuuriyadda
saamigaasi wuxuu ku sababay inay dareemaan in laga sadbursaday isla markaana halka ay ka qaadaan boholyo ay u qabaan inay gaar wax u yeeshaan cabashadaas iyagoo qaba ayaa waxaa timi dowladdii kacaanka waxay dareemeen mar labaad in la gacan bidixeeyey oo ay ku dhacday wax iyaga gaar u ah taas ayay ka jawaabeen oo bannaanka u baxeen halgankoodu ma khaldanaa mise ma saxnaa waa doodan innaga inoo ol laakiin ugu dambayntii waxay samaysteen wax iyaga u gaar ah oo maamul ah maamulkaasi wuxuu ku dhisan yahay qadiyad la yidhaahdo annaga ayaa gaar wax u yeelanayna waxaanu burburinaynaa midnimadii iyo act of unionkii lagu saxeexay 1960 gurigii baarlamaanka oo ay saxeexeen 33 xildhibaan oo reer waqooyi ahaa iyo 90kii xildhibaan ee koonfurta oo 123 xildhibaan oo baarlamaankii Soomaaliya matalayay oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan matalayay inay iyagu gaarkooda uga baxeen cidda marka koowaad horta act of unionkii ama midowgii ka baxday horta waa beeshaas ayaa midowgii ka baxday okay sida saxdaana dawladaha ama adduunyadu waxay ku wada hadashaa af dawladeed ay ku wada hadashaa dawladu qof ma yaqaanin adduunku qof lagama yaqaan unitka analysiska lagu sameeyo adduunka waa dawlad saas darteed dawladu waxay ilaashadaan wax la yiraahdo madax banaani dhuleed ama territorial integrity iyaguna waxay ku doodayaan annaguna waxaan rabnaa self determination oo ah inaan annagu gaarkayga u baxno haddaba waxaa doodi ka taagan tahay keebaa culus dadku inay xuquuqdooda gaarka sheegtaan oo ka go'aan dawlad iyo dawladii inay madax banaanideeda ilaashato inta badan dadku waxay u xagliyaan inay culus tahay ilaalinta iyo madax banaanida jamhuuriyadda marka isku dhisan saas darteed waxaan inta badan aragnaa markaynu Muqdisho joogno dad badan oo siyaasiyiin ah oo dawladda federaalka ama xilka haya ama ka tirsan ama madax soo noqdayba oo adeerkiisan maalmo dhaweyto kuwa musharaxiin u ordaya inaysan fahansaneyn qadiyadda dhan ee jiritaanka qaranka ku dhisan tahay war qodob dastuurka jamhuuriyadda federaalka qodobkiisa koowaad faqradda saddexaad waxay ku dhisan tahay jamhuuriyadda inay tahay lama taabtaan madax banaanideeduna inay tahay muqaddas lagama gorgortami karo wada hadal lagama geli karo sympathy iyo empathy midna looma muujin karo jamhuuriyadda ninkii ka go'ayaa waa in la yiraahdaa si loola hadlaa si cadaawadeed waa in loola hadlaa waa in loo wajahaa sidii loo wajihi lahaa inuu dal kugu soo duulay oo kale waayo haddii ay maanta bilaabanto in Somaliland sympathy loo muujiyo kala good waa Puntland loo celinaya waa Koonfur Galbeed loo celinaya waa loo celinaya wax la yiraahdo isheeg ee banaadirtan laftigeeda waa la kala tagaya saas darteed haddii la doorto in la kala tago falilahi alxamdu waa nin kasta meeshu doono ha aado waa la yaqaanaa laakiin haddii la doonayo midnimada iyo jamhuuriyaddu inay sii jirto inagu maadaama Muqdisho ku sugannahay waxaan u jeedinaa dawladda federaalka iyo dadka hanka uu kaga jiro inay jamhuuriyadda maamulaanba inay qodobka midnimada ay wax weyn ku bixiyaan